waxaa la ogaaday sayidka inuu permanent ka dhigtay meel uu degan yahay oo rasmi ah meesha la yidhahdo Muqdisho gobolkan Sanaag ayay ku taallaa kor meeshaasaa lagula duulay oo lagu dhuftay markii lagu dhuftay oo Muqdisho lagu galay oo diyaaraduhu ku duqeeyeen diyaaraduhuna sayidku waxa cadaatay gabaydiisana ku cad inuusan diyaaradahan aqoonin wax ku cusub ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ahaayeen diyaarado duulayo oo xabada ridaya oo madaafiic cirka ka soo ridaya galladaha ilaahay ka badan geedaha baxaaye guushuu inoo yeelay baan idin garwaaqsine guddiyey magaal waxaa tihiin gacaalahayge waxaan marka hore ka warramaynaa iyadoo la joogo 100 sano guuradii ka soo wareegtay jabkii daraawiishta iyo sayid maxamed cabdulla xasan marka hore soo ifbixiisii kadibna waxaan ka hadli doonaa dhaqdhaqaaqiisii kadibna jabkiisii sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu ka yimi marka ay ku aadan tahay 1895 Xijaaz oo dhulka hadda loo yaqaan Sacuudi Carabiya halkaasuu muddo xajna u joogay waxbarasho tacliin sarana u joogay wuxuuna ka mid ahaa culamaa u diin wadamada muslimka Afrikada muslimka ka kala yimid oo Xijaaz ku sugnaa xilligaas oo markii ay dalalkooda ku noqdeenna guluf colaadeed la galay gumaysiga iyo gaaladii dhulkooda haysatay meelahay gulufka ka sameeyeen waxaa ka mid ah Senegal Gambia Mali iyo meelo badan Sudan waa kasii horeysay sanado badan hortii laakiin way isku soo gaareen qaar kamid ah dadkii kiciyay shuculadii halganka gumaysla dararka Sudan sida dad la ehla ama mahdigii Sudan uu kamid yahay sayidku markuu ku soo noqday dhulka Soomaalida asagoo ku hubaysan afkaartii uu ka soo xambaaray Xijaaz oo ahayd anti colonialism in gumaysiga lala dirro asaga awowgii iyo aabihii iyo asagaba waxay deganaayeen dhulkan waqooyiga Soomaaliya ee xisaabsanaa British Somaliland barigeeda markuu soo noqday wuxuu ku soo degay Berbera markuu yimi doonta markuu ka degay waxay isqabsadeen British Colonial Authority meesha joogay iyagoo isku haysta sayidku wuxuu ku hubaysnaa afkaar gumaysi la dirar ah oo uu ka soo xambaaray Xijaaz wuxuu weydiiyay marka dadka waxa laga qaadi jiray madaxooda waxa laga qaadi jiray yusrad ama wax anshuur camal ah qofka baxaya iyo qofka soo dagaayaba marka tiyo sayidku diiday markuu diidayna de wuxuu yiri dhulka ma aniga leh mise adiga leh markay isqabsadeenna waa meeshay kula baxday wadaadkii walnaa Maad Mullah ee Ingiriisku u bixiyay markuu magaalada galayna wuxuu dagaalkii u horeeyay ku qaaday culimadii joogtay magaalada Berbera wadanka Soomaaliya guud ahaan dariiqada dadku wada haystay waxay ahayd dariiqul qaadiriyaduna waxay kulminaysay dhaqamadii hore Soomaalidu haysatay iyo diinta islaamka si gradual ah dadka in islaamka xoogiisa loo geliyay aaminsaneed laakiin asagu taama aaminsanayn wuxuu la yimid afkaar aad iyo aad u adag oo ah black and white cadaan iyo madow labada dhinac mid qaadanaysa taasa marka sayidka bilowgiisa hore wax yar curyaamisay muddo bilooyina waxay isku dhaganaayeen culimada masaajidada Berbera kadib markuu arkay inaanu dad badan oo fikirkiisa la xambaara uusan ka helayn Berbera ayuu wuxuu u socdaalay dhulka baadiyaha ah ee miyiga markuu miyiga tagay ayuu miyiga wuxuu ka helay dad la qaada afkaartiisii gumaysiga la dirirka ahayd iyo islaamnimada mideeda adag tiina waxay keentay inuu sayidku helo qabaa'ilka uu la hadlo gubaabiyo baraarujinteedina uu dad badan helo oo u noqda la asaasa daraawiish oo uu ka keenay magaca daraawiish uu ka keenay Sudan mahdiga ayaa ku dagaalamayay magaca daraawiish oo asalkeedu ka yimid Iran eray ahaan oo loola jeedo ninkii faqriga ahaa ama maskiinka ahaa ee Ilaahay ku xirnaa ayuu noqonayaa hadii la turjumo darwiish marka magaca daraawiish ayuu qaatay ilaa hadda waxa aan darsaynaa sababta sayidku u qaadan waayay magaca Soomaali ugu dagaalgelin waayay ciidamadiisa ee uu daraawiish ugu dagaalgeliyay
identity-ga uu qaatay oo wuxuu ku xiriiriyey islaamnimo yani secular nationalism ma qaadan marka dagaalkaasuu sayidku galay ciidanka markuu urursaday ujeedada u weyn oo ciidanku ururiyeyna waxay ahayd inuu ku duulo boqortooyada Ethiopia oo si xoog leh ugu soo fiday dhulka Soomaalida har qabsatay intuusan asagu imaan 1997 har qabsadeen kadibna waxay ku soo fideen jigjiga ilaa dhulkan Soomaalida ay hadda haystaan Marbakis u soo dhawaadeen marka Ethiopia rabay inuu marka hore ku dhufto laakiin waxa ka soo hoos galay Ingiriiska oo si qaldan u fahmay qadiyada uu rabo sayidku daraawishna uu asaasay oo rabo inuu ku duulo marka isqabsiga Ingiriiska asaga waxay ka bilaabatay laba nin oo Ingiriiska askartiis kamid ahaa ayaa qoryo ka xaday Ingiriiska waxayna ula goosteen sayidka daraawishtiis isagoo bilaaw ah oo qori aruursi iyo tababar ay ku jira markay u geeyeen qoryihii way ka iibsadeen kadibna duurkay sii galeen qabiiladoodii ku laabteen marka Ingiriisku governatorihii fadhiyay Berbera warqad ayuu sayidka u qoray uu leeyahay soo celi qoryahaas sayidkuna warqadda dhinaceedii kale ayuu afcarabi ku qoray oo dib ugu celiyay oo uu handadayo ninka governatorha ahaa qori kaama hayo waxana kaama haysto wax noocaas uu leeyahay taasoo ama kaag Ingiriisku ku riday la yaabeen weligood tani la yaabanayeen waxay ahayd qof isku taaga ma aysan arki jirin culimada dariiqada qaadiriyada waxay ku dhaqmaysaa wax ka awood badan haday ku qabsadaan si garajo wala tartiib ah inaad isu arurisid inay tahay oo aadan si toos ah uga hor imaan marka sayidku dariiqada uu watana waxay ahayd saalixiya sheekhiisii oo Xijaas maka ku soo quraamiya wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Saalix oo Sheekh Suudaani ahaa marka dariiqul saalixiya la oran jiray dariiqadaas oo way sii jirtay oo wadanka way joogtay laakiin sayidku aspectiga ama dhankeeda anti colonialism-ka uu leeyimi waqooyina waa joogtay koonfurna waa joogtay laakiin sida sayidku u xoojiyay uma xooganeen marka warqadaas khilaafkoodu ka bilowday kadibna Ingiriisku col ayuu ku bixiyay asoon ka fikirayn hadafka sayidku leeyahay aan dirsin fahmin ayaa dagaalkoodu meesha ka bilowday laakiin intaan dagaalada sayidka Ingiriisku bilaaban sayidku dagaalka u horeeyay wuxuu ku dhuftay dagaal weyn ma ahayn weerarka u horeeyay qaado weeraraan oran karnaa meel xirta dariiqada qaadiriye ee deganeed ayuu gabagabeeyay laakiin duulaankiisi ama dagaalkiisi ugu horeeyay oo weynaa oo ugu horeeyay wuxuu ku qaaday Ethiopia wuxuu ku dhuftay jigjiga asagoo ciidan aruriyay diyaarsaday saan ku sheegay tababar galay wixii u habaysan yihiin oo sidoo u bilaabi lahaa ka fakaraya ayaa waxa u yimid qabaa'il kamida qabaa'ilka Soomaalida ee degan aaga jigjiga waxayna u sheegeen inay geeloodii la dhacay arigoodii la dhacay xoolahoodii la boobay oo Ethiopiaanka qaateen Ethiopiaanku waxay sameyn jireen dadka Soomaalida xoolahooda ay xoog ku qaadan jireen ayagoo ku sheegay inay tahay wax canshuur ah laakiin boob ah iyo dhac marka ciidan gaaraya ilaa iyo lagu qiyaasay 2000 ayuu jigjiga ku bixiyay markay jigjiga galeen dagaal ay meesha ka geysteen xoog leh weerar habeenay ku dhufteen dagaal waxa dhacay Ethiopiana ka yaabiyay sayidka ka yaabiyay Ingiriiskana ka yaabiyay rekoorka hadda waxa ku qoran daraawishti 2000 ahayd 600 inay Ethiopiaanka dileen laakiin yaa guuleystay hadii la yiraahdo waxa la qiimeeyay waxa guuleystay sayidka inuu ahaa waayo geeli iyo arigi iyo wixii la dhaco dhan soo dareeriyay uu dib uga soo qaaday Ethiopiaanka wuxuuna ku soo celiyay qabaa'ilkii laga dhacay wixii uga dhintaba uga dhintaan Ethiopiaanka tirada ka dhimatay lama hayo ilaa hadda way qariyeen laakiin mid la hayo oo cadeyn weyn ah waxay tahay in wakiilkii Ingiriiska u fadhiyay magaalada Harar uu la yaabay reportku u soo qoray dawladda Ingiriiska markii la aqriyay aqrina waxa ku qoran inuu la yaabay wixii Harar ka dhacay markii sayidku jigjiga galay oo weerarkiisu koobaad ay tahay waxay ahayd in cabsi xoog leh ay qaadeen Ras Makanan oo meesha xukumayay governor Ethiopiana ka ahaa iyo Ethiopiaanka joogay xitaa cabsida gashay inay ku jirtay inay carruurtoodii hubeeyeen si ay u tusaan inay yihiin dad hubeysan oo awood ku leh magaalada Harar cabsi ilaa heerkaas oo Harar xataa ku qasbi gaartay inay dib uga laabtaan ayuu sayidku geystay oo haddii duulaankaas jigjiga uu soo xoojin lahaa qabaa'ilka Soomaaliduna si dabageli lahaayeen oo Harar xataa ka kicin lahaa
laakiin de markuu kasoo laabtay jigjiga wixiina soo xaliyey markaa kadib ayaa weeraradii ingiriiska iyo isaga bilowdeen weeraradaasoo etoobiyana kusii xoogeysatay ummadda soomaalidana kusii daciiftay gumaysiguna isku sii ballaariyey sayidku markuu ciidamada isku dubaritay wixiisii fariistay meel markii hore buuhood lagu dhow wuxuu bilaabay inuu warqado qoro shaqadii u horreeyay bilaabay waxay ahayd inuu qabaa'ilka soomaalida warqado u qoro warqadihii u horreeyey beeshii u horreeyey warqado u qoro waxay ahayd beesha cidagale oo uu dalbaday inay dadkana hanuuniyaan ummadaha kale qabaa'ilka kalena usoo hanuuniyaan halgankiisana qayb ka qaataan sababta ugu dirana si deliberate ahaydoo cidagoluhu waxay ahaayeen dadkii saldanada beesha isaaq oo dhan madaxda ka ahaa xilligaas laakiin warqada ugu qiimaha badan oo sayidku qoray uguna ballaaran uguna bog badan tiro badan waa warqada uu diray beesha biimaal ee degan koonfurta wadanka oo jawaab uu ka jawaabayana ahayd warqad ay isaga usoo qoreen ayagoo talyaaniga la xarbinayay ay weydiisteen inuu hubna ku garab galo saacidana wixii ku saacidi kareen iskaashadaan actually warqad noocaas ay usoo qoreen warqadii uu ka jawaabay marka waa warqada ugu caansan wixii warqada uu qoray warqada aad u far badan uu qoray waxaa la yiraahdaa rixlat al-biimaal ya warqadaas uu qoray soo gaadgaraynaya sida loola dagaalayo meesha lagala dagaalayo adi wax dhigtig camal aheedo oo cilmiyeynayo halganka oo suureynayo idea iyo fikrado uu siinayo sida loola dagaalo waana ku aflaxeen de waana soo xoojiyeen ciidamay xataa ka dalbaday usoo direen inkasta oo arinta murugada la ay ahayd mar ay 200 oo ciidan usoo direen ciidankii usoo socda oo galaadi meel yiraahdo soo maray hadda dhulka Itoobiya gudaha ku jirtaa in dad qabiilo ah oo dhulka degan oo sayidka la dirsanaa ay 83 qof oo biimaal meesha ku laayeen oo sayidku sii socday marka warqadaha sayidka qoray beelaha Soomaalida oo dhan uu qoray wuxuu warqado u qoray xataa oo hadda ay yaalaan Kenya National Archive-ka kaydka gumaysiga Ingiriiska lagu kaydiyay Kenya Nairobi yaalaan wuxuu u qoray qabaa'ilka Soomaaliyeed ee degan NFD hataa warqado uu qoray Soomaalida koonfurta waa u qoray waqooyiga waa u qoray galbeedka waa u qoray dhulka Soomaalidu degto dhan uu wacday oo dadka u qoray marka si ay ugu soo biiraan wixii ku soo darsoomi kara ku soo darsoomaan marka duulaankiisii markuu sii xoogeystayna Ingiriisku wuxuu qaaday 4 duulaan oo expedition waxay u bixiyeen 4 jeer ayay abaabuleen inay wax ka qabtaan 20 sano halgamay 4 jeerna waa lagu fashalmay waayo sayidku istaraatiijiga military oo ku dagaalgalo waxay ahayd ku dhufo oo ka dhaqaaq yani ciidanka Ingiriiska marka la soo saaro inuu dhaxda intuu u galo ku dhufto asaas isku qabsadaan dhowr saac la israfiyo ama Ingiriiska laga adkaado marna asaga laga adkaado saas ahayd ma lahayn sayidka ciidan meel u fadhiyo oo lagu soo duulayo oo la ogaamaahan ciidan dhaqaaqay ay ahaayeen marka 4taas duulaan oo labadii hore laga soo qaaday dhinaca berbere labadii dambana mid laga soo qaaday dhinacan hobyo ay ka soo galeen Ingiriisku midka afraadna laga soo galay Ethiopia oo ciidan Ethiopiana oo ilaa 10,015 meelaha lagu qiyaasay soo wateen waa lagu aflixi waayay dhinaca Ethiopia markay ka yimaadeen waxa kamid ahaa waa kii uu nugaal ku galay sayidka eyl uu ku dagay oo intay xareerayeen 4 dhinac laga maray oo dhaxda intuu ka booday soo ciidamadiisii wixiisa wata oo eyl galay gabayadiisana uu xataa ku sheegay rafaadka uu maray oomka uu maray xoolihii meesha uga leedeen xilli jiilaale ee ahayd xilligeed oo fakanayay ama qaxayay meesha marayay marka arintaas ayaa dhacday jabkiisu marka hadaan u guda galno jabkiisu ma ahayn sayidku hal maalin ku dhacay wax silsilada oo dheer oo soo socday ahayd wuxuu ka bilowday jabka sayidka markii sayidku bedelay istaraatiijiyadii military oo uu ku howlgalayay oo uu bilaabay inuu samaysto permanent settlement meel uu degan yahay oo lagu yaqaano oo qalcado uu abuurtay waxaana u waaweynaa labada qalcad u waaweyn uu sameeyay ahayd qalcadda Medishe iyo qalcadda Taleex markay Ingiriiska 4 expedition ay ku fashalmeen waxaa la dejiyay strategy in diyaarado lagu duqeeyo marka duqeynta diyaaradaha ninka dejiyay istaraatiijiyada saxay sayidka in lagu duulo oo diyaarado lagu duqeeyo wuxuu ahaa ninka marka dambe noqon doona wadankan Ingiriiska ra'iisul wasaarihiisa Winston Churchill oo marka 1920kii la duulay ahaa xogayihii dagaalka Secretary of War wadankan Ingiriiska markii diyaaradihii la sahmiyay meelaha uu degan yahay qalcadaha samaystay in diyaarada lagu duulo waxa la ogaaday sayidka inuu permanent ka dhigtay meel uu degan yahay oo rasmi ah meesha la yiraahdo Medishe
gobolkan sanaag ayay ku taallaa kor meeshaasaa lagula duulay oo lagu dhuftay markii lagu dhuftay oo madhisho lagu galay oo diyaaraduhu ku duqeeyeen diyaaraduhuna sayidku waxaa caddaatay gabaydiisana ku cad inuusan diyaaradahan aqoonin wax ku cusub ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ahaayeen diyaarado duulaya oo xabado ridaya oo madaafiic cirka kasoo ridaya marka waa soo fakaday sayidka madhisho waa kasoo baxay wixii uga dhintay iyo wixii uga leedaba wuxuu soo galay qalcadda taleex uu dhowr isbuuc ku jiray ilaa ciidan la kiciyey marka oo la yidhi markan looma baahna in diyaarado la kiciyo waxaa loo baahan yahay inay ciidanka kasoo baxaya berbere iyo sheekh ay hareerayaan marka ay taleex ku hareerayaan waa la hareeriyey marka sayidka ingiriisku markaas wuxuu wataa horena u watay ciidamo hindi ah wuxuu watay ciidamo madow afrikaan ah oo uu zimbabwe iyo meelahaas oo dhan oo gumaysanayay ka keenay markii la hareereeyey dhowr habeen lagu hareereysnaa madaafiicna lagu garaacayo asna isdifaacayo oo 9 habeen xabadu socoto si goos ah habeenka uu baxsan doono habeen ka horreeyay waxaa soo fakaday oo sayidka soo fakaday nin adeerkiisa waayeel ahaa iyo wiil yar oo u dhalay oo 12 jir ah waxayna isu dhiibeen ingiriiska reportka marka sirdoonka ingiriiska ay ka qoreen ayaa yaala ilaa maanta archive-ka marka adeerkii iyo wiilka ayay wareysteen habeenkii oo ay ka ogaadeen sayidka inta ciidan u haysto inta saanad u haysto inta rasaas u haysto inta hub u haysto tirada askarta la joogto wixii oo dhan sayidkuna waa fahmay mar haddii sirtaas baxday inuusan meesha kusii jiri karin marka habeenkii saqadhexe salaadii subax waa ka baxay dhinaca u marayba la yaaba yihiin ilaa ayaga laftirkoodii ribooradooda haddaa fiiris marka nin dhulka iyo deegaanka aad u kala yaqaano ahaa dhul uu ku dhasho dhex joogay meeluu yaqaano uu ku korow joogay waa soo fakaday wuxuu isaga dhigay nin dhinaca bari aadaya markuu baxsanayay marka saas markuu u baxay bari aaday ayuu gadaal kala soo wareegtay oo koonfurta usoo noqday marka raadkiisay ku socdaan waa eryanayaan galaadi ayuu istaagay meesha la yihahda galaadi ilaa maanta waa dhisan tahay dhinacan xadka soomaalida Ethiopia gudahay ku jirtaa galaadiyo biyo ka cabay fardihiisii iyo wixiisina biyo ka siiyey waa sii eryadeen waxay qoreen oo reportkooda ku qoreen sayidka dadka la qaxay la carraayay waxaa ka mid ahaa 16 nin oo ciidan ah oo ka mid ah muslimiinta Ethiopia wayna laayeen ingiriisku damoray sii eryadeen nimanka waa hareen way laayeen laakiin waxaa la ogaaday inay ahaayeen niman uu soo diray ninkii boqor sugaha Ethiopia ahaa ee loo yaqaanay Lijazu 1916 4 sano markaas ka hor laakiin markii dambe Haile Selassie iyo gabadhii Menelik ay afgambiyeen Addis Ababa asagoo ku soo maqan Harar iyo Jigjiga nin muslimnimada jeclaa asalkiisa muslim ahaa aabihii asagaba laakiin lagu qasbay inay kristaan noqdaan gaalo ninkaas oo cilaaqaad sayidka ay samaysteen warqado isu qoreen tiro badan warqadiina hadda ay yaalaan qaarkood ayadoo af ingiriis lagu turjumay Addis Ababa yaalaan Ethiopian Institute Ethiopian Studies ayaa meesha lagu laayay sayidkuna waa sii socday ma istaagin wuxuu ku hakaday marka soonaha webiga faafan ayuu galay gandal dheere wata wax badan gooyadu waqaaye gaf hadduu ku sii daray xaqii guudka laga saaray anigu waa u garaad qabay inuu gegi waraabo